waayahay dagaalkii maanta maxaa ku soo kordhay horta laba qodob oo muhiim ah jawaab iyo jawaab celin ee maraykanka 15 qodob oo ayuu u dirsaday Iran oo uu leeyahay 15kaas qodob fuli dagaalka uu joogsanaya wuxuu u marsiiyay codsigaas Pakistan iyo Masar haba u badnaato Pakistan oo diris la ah Iran Pakistan 15 qodob oo Trump uu dhiibay ay qaaday waxay u geysay Iraniyiinta madaxda meesha joogta loo geeyay madaxda 15 qodob ay fiiriyeen waxa ku jiro 15 qodob wixii hore dagaalka intuu soo bilaabo ka hor lay ku jiraba hubka nuclear-ka dhig maadooyinka looga bacrimay anaga noo soo dhiib gaari gacan soo saar soo dhiib cunaqabtaynta waa laga fududeynaa marinka Hormuz ciidamo isku dhaf ah ha lagu wareejiyo gantaaladan jooji dagaalka jooji adiga 15 qodob dhan waxaasay u badnaayeen wixii hore u maqalnay aan waxba ka duwaneyn ayuu Mareykanka soo qoray aw Pakistan wuu gudbiyay Iran muddo 4 saac ay horta wixii fiirisay madaxay xoqdeen waxay dhaheen saas miyaha oo Mareykan oo 15 qodob soo gudbisaha way jeexjeexeen Iran 15 qodob ee loo Mareykanku u gudbiyay oo la rabay in dagaalku lagu joojiyo way jeexjeexday qarrac alaga tarqani qabsiyen waa ko iyagana waxbay soo qorteen Iran waxay tiri 15 qodob soo ma jeexjeexin ha dheh xagee u reey nigana 5 qodob wata 5 qodob bas oo sahlan oo tartiib ko ah iyagana oo dhigano macna ay soo gudbiyeen Pakistan la kal hoshan 15 qodob qaad u geey Mareykan intaas duu fuliyo dagaalku waa joogsana intaas duu fuliyo Iran dagaalku waa joogsana 15 qodob maxaa marka qodobka koowaad horta xabajoojin wax la dhaho ma jirto dagaalka waa inuu gabi ahaan ba joogso si dagaalka gabi ahaan u joogsado ka saar ciidankaada bariga dhex ka saar sida firi Mareykan qodobkiisa koowaad 15 qodob dabcan waxa ku jira xabad joojin iyo dagaalku joogsan laba kala taa ogaada xabad joojin macnaha waxa wali waa la soo fadhiyaa way muqt xabad joojin yaa la gaada xabad joojin wax la dhaho dunida ma jirto abo xabad joojin was ku meel gaar ciidankii dib u dagaayo way soo casheenayaan rasaastii wixii la soo qaadana haddana dagaalku uu bilaabana xabad joojin saas waa Iran waxay taaginta xabad joojin wax la ma jirto eriga horta eriga afkaada ka dhor Trump erigaas xabad joojin dagaalka ha joogsado suu dagaalku u joogsanaa cidda soo qaaday ee dagaalka duulaanka ah ha joojiso si dagaalka uu u joogsadase ka kac meesha ay fadhisid ka kac ileen hadda dagaalku waa joogsanaa saldhigyadii Sacuudigana waa sidoodii Kuwait waa sidoodii Bahrain waa sidoodii Qatar waa sidoodii Imaaraat Carabna waa sidoodii ma soconayso mogta Oman xitaa uu fadhiya Mareykan Iran marka qodobkaas soo gudbis dagaalka ha joogsado jooji si uu joogsadase كعيدن كذا مش كعرة واكو والله مرينغ هرموز أنا جا بقول كيف بقول معمولاي أول مرينغ هرموز فيريا قاب وحاب معمول جرتي أما قاب لنا كده جنيد طبعا إمارات كعربتا إي عمان إي قطر إي بحرين إي يعني دول كاس مدام برشن جلف كأمراء إيران هدو حتى جنتها بقول قضبضة يسوق بزوج كم ده دول كاس صوتن معمول كيسة إي أمان كيسة أنا جا صغير والله بو دون ترامب طبعا وحناخدونا مركو قضبضان أركو wax soo gudbinayo oo la dhaho hub nuclear lagu bacrimiyo iyo gantaal iyo qaabka wax u sameey ma jir adiga 5 qodob waad ugu tala galeenba inay ka xanaajiyaan 5 qodob waxay yihiin idin sheegaysa oo fahantaan muuqaal ahaan 5 qodob waxay yihiin kale idin fasaxo muuqaalka ninka dhan ee u hadlo IRGC da ciidamada Iran ninka u hadlaba soo taagan aanu bixi soo taagan saas u taagan markuu hadlayo soo taagani xitaa indhaha blinking ma sameeyo waxa u malaysaa AI markuu hadlayo dad Soomaali badan AI ninka u malays horta adin fasaxo ninka generalkii oo hadlayo oo leh Mareykanoo beentan idaacada ku faafinaysid walaalow adiga guul aragtid guul ma ah Mareykanoo adiga guul daro guul u aragtaa guul daro guul u aragtaa waa ko والله أو مريكانو أديك اللي إسلحاد ليست إيران الله هذلا عددك كان عند عيسى أديك اللي إسلحاد ليست ترامب اللي مراية ترتاجن سجل إسأركويو هاي إيران السلام عليكم وعليكم السلام إيران إيران حالك ورنا جوس أوكي ما هي عدة قوس عروتك ورا معناه جنرالك وأدين فصح هذه الكيسة أصبح لها مريكانو أديك اللي إسلحاد ليست أصدق وإن محوها إن أودا
عدة خيرك نينك أهرو ونينك ما عرفتي ماشي معمولاي مريك هرموز أنجا معمولينو أنجا فرينو إلا هذا أنجا معمولنا وحربك سميسرين عادي نينكي أو هذا وكحداق الدور دونالد ترامب أسوه نسوه تاجن يري أرت واقن was. اسم شکستتان را توافق نگذارید. Do not call your defeat an agreement. The era of your promises is over. Today, the world has two fronts, truth and falsehood. And every freedom-seeking person will not be deceived by the waves of your media. Has the level of your internal conflicts reached the point where you are negotiating with yourselves? There will be no sign of your investments in the region, nor will you see the previous prices of energy and oil until you understand this. Stability in the region is guaranteed by the powerful hand of our armed forces. Stability comes through power. We have a team of وايه انت سؤال صوما طبعا ولي waxa meesha noo yaalo shantii maalmood oo Trump uu qabsaday oo jimcaha ku eg laakiin maanta ayaa wixii soo gabagaboobeen Donald Trump waa tuu naga dhaadhicay wada hadal bilowday shan maalin qabsanay inta ka dhacday maanta waa lagu kala kacay adiga wixii wada hadal iyo wada xaajood iyo xogaa tuhunki magaalada ku jiray meeshaas ay ku soo gabagabooday rasaasta nool wax ahayn meesha ma soconayso marka xaajada meesha joogto marka raba in aad fahansiyo sababta Iran ay wax wada hadal ah inay Mareykan la gashay u diiday sababta marta inay fahanti muuqaalkan kooban oo yar Britishka Ingiriiska waxay qabaan kulo yaqaan MI6 waa CIA oo kala waayo oo basaasiinta dunida kaalin saddexaad lagu qiyaasaa ama afraad ugu waaweyn ninka dhan ee madax u ahaan jiray ayaa wixii oo dhan noo soo koobayo su'aala la weydiiyay waxa la yiri heblo hadda meesha xaaladda ay joogto yaa guuleystay ma Mareykan iyo Israa'iil guuleystay mise Iran ayaa guuleystay jawaabtiisa dhanba waa hal eray I think what people are struggling with, what I'm struggling with, is a full understanding of who has the upper hand right now, who is in a stronger position as that process unfolds. Iran. I think Iran marka taasi ogtahay sababtoo waa maqlaysan wuxuu yiri meesha hadda ay joogto xaaladda hadda ay joogto guusha dabcan Iran ay la jirtaa Iran marka ayadoo meesha taagan oo hadda jucda waxa lagu hayaa deertay dunidii xitaa ku ugu dhawaa Mareykanka ee aaminsan yihiin meesha hadda ay joogto inay guul daro u tahay Mareykan iyo Israa'iil ciidan kalena guul u tahay makaayile marka wada xaajood warka aydan siiyo aniga hadda qiyaaso Donald Trump horta laba wada u furan inuu guul daradaan sheegto gacmaha kor taago jab weyn ay ku tahay Mareykanka iyo asaga iyo siyaasadiisa wixii oo dhan ma qaadanayo talaabada xigta uu qaaday hadda idin si sheegaa dagaalkan toos u gala gacanta la isku tagayaa hadda qorshe waxa soo ciidan badan oo ku daabulay aagaas qorshe waxa socdo lugta ah jasiiradaha qaar in la qabsado si ninkan guul u sheegto hadda sheekada meeshaas ay maraysaa wada xaajoodkii xaanshi waa jexjeex